بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال إذن لهانتين waxaad leenahay meel walba joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee maanta aynu halkan idinkugu faaqidaadi doono haddaba markii aynu ka hadalno barnaamijka ciyaaraha iyo kala iibsiga suuqa ciyaaraha ee toddobaadkan oo kooxaha qaar ay markaasi sii gudbisanayaan liisaska ama ciyaartooyda ay doonayaan January markii la gaaro in ay la soo wareegaan haddaba sidoo kale ciyaaryahanka la yiraahdo Estevao William oo markaasi ka ciyaara kooxda Palmeiras ee dalkaasi Brazil oo ah 17 jir ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in uu ku biiro sanadkan soo socda kooxda Chelsea doonayana xiiso weyn uu qabo inuu markaasi ka ciyaaro Premier League kana garab ciyaara Palmer iyo waliba Enzo ciyaartooyda reer Argentina sigana sidoo kale Latin America isla yihiin waxa uu markaasi sheegay ciyaaryahankan xili uu tababarka joogay asigoo markaasi la tababaranaya ciyaartooyda Brazil xulka qaranka Brazil oo markaasi tababarka markaasi oo la qaadanaya ciyaartooy aad u fara badan oo ay ka mid yihiin ciyaartooydaasi Gabriel Martinelli iyo waliba ciyaaryahan kaleeto oo Brazilian ah marka ciyaartooydaasi waxa markaas uu sheegay inuu xiiseynayo inuu Premier League ku soo biiro sanadka soo socda rajadiisuna ay tahay mid aad u weyn oo ay kooxda Chelsea ay u soo dhigtay dalab u soo bandhigtay sida uu sheegay ciyaaryahankaasi sidoo kale waxa markaasi la sheegayaa Xavi in ay Barcelona imikan uu ku soo laabanaya xerada tababarka ee kooxda Barcelona Xavi ayaa marka ay sheegeen madaxda Barcelona in uu markaasi ku soo laabtay tababarka welina ay assessment ay ku jiraan oo weli ay markaasi xaaladiisii iyo dhaawiciisii fara badnaa oo muddada dheer oo maqnaa ay la tacaalayeen in badan haddana dhaawiciisu noqday mid hadda xoogaa normal ah waxa ay sheegayaan marka guddiga kooxda Barcelona inay u soo bandhigeen wada hadallo la socda Xavi iyo ayaga oo la doonayo in heshiis cusub laga saxiixo ciyaaryahankan maadaama in badan uu markaasi muddo ku dhawaad 2 sano ama 2 xilli ciyaareedba uu jiifay ama uu dhaawac kaga maqnaa kooxda sidoo kale waxaa jiro ciyaartooy fara badan oo la doonaya inay markaasi la soo gato naadiyasha waaweyn ee ka ciyaara qaaradda Europe kuwaasi oo ay markaa doonayaan in ciyaartooy fara badan ay soo gataan sidoo kale Rizzi oo kamid ah ciyaaryahan ka dheela xulka dalkaasi Italy oo ay Man City doonayso inay markaasi ku bedelato Rodri ku bedesho booska Rodri maadaama Rodri uu dhaawacan yahay imikan ay doonayso ciyaaryahan qadka dhexe waliba number 6 kaga ciyaara burburiye ah oo kubadana dhisi kara inay markaasi hesho Rizzi ayaa waxa uu markaasi sheegay in uu ku qanacsan yahay xilli ciyaareedkiisa oo doonayana uu yiri haddii aad horumar samayso shakhsiyadaada in markaasi aad noloshaada horumar fara badan aad gaari karayso haddii aad dadaasho oo aad ciyaarto si wanaagsan u ciyaarto ismoojiso isu soo bandhigto in markaasi ciyaaryahan wanaagsan skills fara fiican ama xirfad fiican leh aad noqoto ciyaartooyda kalaabiyada adduunka waaweyn inay ku soo dalbanayaan waxa uu sheegay waan ku hami weynaa maalin in ay soo dalban doonaan kooxaha adduunka ugu sareeya sida Real Madrid Barcelona City Arsenal Chelsea Man United Bayern Munich iyo waliba PSG in kooxaha noocaas oo kaleeta sidoo kale Serie A Italy oo ayadana ay tahay Inter Milan sidoo kale AC Milan iyo Juventus iyo Roma inay markaasi ka mid noqon karaan kooxaha markaasi asigu soo dalban karaan haddii uu markaasi ciyaaro ciyaaryahan kastana markasta uu ciyaarayo wuxuu ku hami weyn yahay dunidan inuu markaasi maalin u ciyaari doono kooxaha waaweyn ee adduunka ka dhisan qaaradda Yurub waliba sidoo kale xulka qaranka England ayaa markaasi waxa tababaraha uu sheegayaa in rajo laga qabo in Bukayo Saka oo ka mid noqdo ciyaartooyda u safaraysa kulanka ay la ciyaari doonaan Finland waa xaqiiqdii wili Bukayo Saka waxa uu joogaa kooxda Arsenal Emirates ama
meeshii colne oo lagu tababaraya ciyaartoyda. halkaasi ayaa assessment lagu sameynayaa, halkaas lagu dabiibayaa xaaladiisa caafimaad iyo sidii dhaawaca uu usoo gaaray. maalinba maalinta ka dambeysa waxaa la siinayaa assessment ama caafimaad joogto ah si looga warhayo xaalkiisa. inkastoo ay Arsenal ay la ciyaari doonto kulanka Bournemouth, laakiin haddii uu maqnaado Bournemouth wax culeysa kuma lahan Arsenal, laakiin waxay markaasi doorbidayaan in uu joogo kulanka ay Liverpool la ciyaari doonaan Arsenal. haddii kulankaasi oo maqnaado waxoogaa cabsi weyn ayay markaasi qabtaan, maadaama kulankaasi uu yahay kulan adag oo derby ah oo markaasi ay Arsenal iyo Liverpool ay la ciyaarayaan, because maadaama ay Liverpool iyo Arsenal ay yihiin iyo City saddexda koox ee tartanka adag kaga dhexeeya Premier League saddexdii sano ee lasoo dhaafay ama labadii sano ee lasoo dhaafay iyo sanadkanba uu saddex ku yahay. intooduna ay doonayaan in mid kastaba uu asiga ku guuleysto Premier League. tartanku aad u furan yahay, haddana ay kala horeynta titlekoodu uu yahay 18 dhibcood ay kooxda Liverpool kaalinta koowaad kaga fadhido kala horeynta Premier League xilligan hadda la jooga. sidoo kale kooxda Man City oo kaalinta labaad ay ku jirto ayadana ay 17 dhibcood ay leedahay. kooxda Arsenal ayadana sidoo kale kaalin saddexaad ku jirto waxay leedahay 17 dhibcood. tusaale ahaan markii aan ku weydiiyo waxay goolashu iskala wada mid yihiin, laakiin goolasha laga dhaliyay Arsenal iyo goolasha laga dhaliyay City ayaa markaasi waxay noqdeen goolasha City inay macnaha hal gool farqi ah u dhaxeeyo goolasha ay dhalisay iyo kuwa laga dhaliyay. sidaas aawadeedna ay City kaalinta labaad ay ku gashay. inkastoo ay markay wax walba isla sinaadaan, haddii xataa ay dhibcuhu isla wada sinaadaan ee xarafka A ama ay ku kala geli lahaayeen Arsenal kaalinta, laakiinse goolasha xagga kala dhalinta kuwa laga dhalishay Arsenal iyo kuwa laga dhalishay Man City oo markaasi ay City ay yartahay kuwa laga dhaliyay xilligan la joogo. waxayna farqiga yihiin hal gool oo kaliya. tusaale ahaan haddaan siiyo aad baad u mahadsantiin asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan. haddii aadan ahayn mid ku xiran bartayda Facebooka iyo YouTube-kayga, fadlan ka mid noqo asxaabta Orokumo subscribe star page-ka YouTube-ka, Facebook-ka page-kana follow inoo dheh si aad markaasi u noqoto saaxiibka koowaad ee hela barnaamijyaadkeena kuwooda ugu doorka roon ee markaasi soo dhaca. aad baad u mahadsan tahay dhammaantiina aad baad u mahadsan tihiin asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan. tan iyo inta dib ugu kulmi doono barnaamij ciinkan oo kaleeta waxaa idin leenahay fadlan waad mahadsan tihiin fi amaanillah.